قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اقرأ أقرئ وربك الأكرم، وربك ربك الأكرم. اقرأ أقرئ القرآن، قرآنك أقرئ النبي محمد. وربك ربك الأكرم، وإله الديق ضبضان، إله الديق ضبضان ويان ربك أخري قرآنك. الذي عليه أخري قرآن كيسا علم برد بالقلم سيدا وحلو قرأ إله إنسانك ككرامي. حيوانات كي نجد دعوين أدون كان إنه سوه الرئي أو دن مدوح قرأ أو تاريخ ريبا كمتشرو. انت حيوان الدنيا كؤمنا إنك أجود دعير أو حيوانات كأوردن حتى دقسينا له وإنك عمري ويا الدنيا وإنك سوه الرئي. إنسانك آدم بالغا أنكيو صلاة عصر أو جمعة أو عدعيد السيد عيسى إساق الله أبورو الدنيا لكينا وصلاة عصر أحد بالله بالله اثنين ثالثة أربعة خميس انت سال لقو إبي أنك أو إذل وحا أقود دعير أو قريد بيس بنا آدمك إياك أنا إلهي كرامي أو إياكو كليا با وحا مخلوقاتك أردن كنو ليا كوكبك إياكا يقانا سيدا وحلو قرو تاريخ دا أي كلا دحلين إيا علمك أي سجد بنيان إيا منافع دا أردن قرالك سي سجد بيان ونعمو آن لكوبي كرين قرالك إنسان كان إسكاله عدل وداك تهمجرته وحدولكم كنو إلهي إساقا ديق بدن ديق دي سنة وحا كميدا الذي الله هو يعلم برا إنسانك بالقلم إسدا وحلو قرو علم الإنسان ددك وحو بري ما لم يعلم شيء آنه هرأ وقوم بامر والبقى دب يعني هدنا أي أسو يعني هندسيان انت إنو النولين أيامها نوء كلية إمساطا علمي وان هرأ له استعمالي كريم بيمر بهندسيان علم وحو بري إلهي الإنسان ددك ما لم يعلم waxaanu dadku hore u aqoonin bay marba hindisihiisa gaarsiinayaan kala intaasi waa shantii aayadood waana suurada dhabta ah ee islaamku leeyahay waa diin ilmi weeye waa diin ilaahay uu ugu tala galay aqoonta aadamaha inuu kor ugu qaado kala arinku sida u moodeen ma ahaan doono innal insaana bina aadmigu badankiisu la yadqa wuu kibra la wallahi baan ku dhaartay yadqa wuu qooqaya وكبريا سنكو تاغيا محا ugu wacan inuu kibro an ra'aahu inuu isarkay istagna inaanu cidna u baahnayn inuu iskaafiyay buu umooda marka uu xoog yeesho ee maalna uu yeesho inaanu ahadba u baahnayn oo kaaftoomay buu iska dhigay arrinkuna sida ma ahaanine inna ila rabbika ilaahi xaqiisu ahaan doona arruj'a warqooqan iyo kibirkani sida ahaan maaya waa la isooga dambayn ilaahay baad u soo noqon doontaa ya caga dhigo intaasina waxa weeyaan bina aadmiga iyo inuu had iyo jeer ladnaantu aanay anficin baa ilaahay inooga warramaya badankiisa walow basata allahu risqa licibaadihi labagaw fi lardi walaakin yunazilu biqadarin maa yashaa halkan waxaa laga bilaabayaa dagaalkii adkaa oo ninkii abaajaha la oran jiray oo nabi maxamed iyo diinta ku qaaday maalin maalmaha kamida ayuu quraysh isu soo ururiyay uu canaantay isagaana oday u ahaa dulli baatihiin ma inan kan yaroo agoonka aba maalin walba kacbada dhexdeeda wajigiisa halkan ku boodboodayn doona salaada isagoo uga jeeda wallahi baanan yeelaynin carbal maanta waan joogayaa hadduu yimaado carwalkaasi hal sujuudo deedna nabigu intuu soo galay kacbadiibu salaadii xidhay waana loo ballamayo waa fagaaro dhan oo la sugayo dabadeedna nabigii salaadiibu galay calayhi salaatu wasalaam waxa leeyahay aba jaal waxaad samayn lahaa abul xikam bay oran jireeno ayaa wakaa wiilkii orada bal waxaad falayso fal uu soo dhaqaaqay iyar markuu u jiro ayaa rabbi
wuxuu dhaxdoodii ka jeexay waraar weyn oo cadaab ah oo olol weyni ka boodayo waxaana arkaya abaajaal wuxuu yidhi dib buu u soo gurtay markaasaa uu soo cararay wuxuu ku soo noqday jamaacadii war maxaa kugu dhacay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen gacmo isoo haabanayana waan arkayey olol baana dhaxdayada kaga ogsaday lafahaygaan u baqay markaasuu nebi maxamed yidhi wallaahi hadduu tallaabo keliya soo qaadi lahaa malaa'igta eebbe ayaa xubin xubin u kala goosan lahayd wuxuuna ka dhirfayey oo diidanaa inuu tukado salaaddaa uu nebi moxamed ilaahay u tukanaya buu diidanaa tii baa ilaahay leeyahay bal waxaa isbarbar dhigtaan nin rabbigii abuuray baan caabudayaa leh iyo nin sanam iyo qori baan caabudayaaloo haddana dagaalamayo kii sanamka caabudaya isla toosan yahay bal ka warrama qaala allahu tabaaraka wa tacala marka abaajahal adeer buu ugu beegnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaanku dhahaa nebiga calayhi salatu wasalaam weliba dee qurayshna wuu ahaa fariintan ilaahay uu inoo sheegayo waxay jawaab u noqonaysaa iyo fariintii xalay abulahab aa garanaysaan nebiga adeerkii ruma iyo labadii ninee ilmo adeerada ruma ah yani nebiga u ahaaye hablihiisa ku soo furay waxay jawaab dhabahoo kaafiya u gudbinaysaa kuwa babqaaga ah ee iska hadaaqee yidhaahda diinta islaamku waa diin carbeed war hadday diin carbeed tahay muu intifaacsada abaalahab oo muu intifaacsada abaajahal oo muu intifaacsada abu aalib maxay u intifaacsan waayeen maxay uga hor yimaadeen hadday diin carbeed tahay waa diinu min allahi tabaaraka wa tacaala ara'ayta bal ka warran baa ilaahay yidhi alladii axadka yanhaa maanacaya cabdan addoon buu ka hor taagan yahay oo ka maanacaya idaa sallaa markuu rabbi u tukanayo ara'ayta waxaad iiga warantaa in kaana hadduu yahay axadkan laga maanacaya cala alhudaa hadduu isagu toosan yahay bal ka warrama aw amara bitaqwa ama uu dadka alla ka cabsi uun faraya bal ka warrama intaasi ma in laysku colaadiyaaba ara'ayta bal iiga warrama in kadaba hadduu beeniyey kan u dagaalamayo abaajaal diintaba hadduu beeniyey watawallaa oo xaqiina uu ka sii jeestay alam yaclam miyaanu ka warhaynin ninka sidaa samaynaya bianna allaaha yaraa inuu ilaahay arkayo kalla arrinku sidaa ahaan maayo abaajahalow kalla lain lam yantahi lawallaahi baan ku dhaartaye baa ilaahay yidhi in haddii lam yantahi aanu ka waantoobin abaajahal lanasfacan waxaanu jiidi doonnaa binnaasiyati fooddaannu jiidi doonnaa halka foodda timuhu ka baxaan ee madaxa hore ah ayaan si ihaano leh u soo jiidi doonnaa aakhiro naasiyatin food baanu jiidi doonnaa kaadibatin beenaley ah khaati'atin oo gafkeedu badan yahay maalin maalmaha ka mida ayuu aad iyo aad si dhiif leh ayuu ula hadlay abaajahal nebigaoo kacbada taagan markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aad buu markaa nebiguna ugu hanjabay awlaa laka faawlaa uma awlaa laka faawlaa alla ilaahay hoog baa kuu sugnaaday markaasuu abaajahal ku yidhi waryahay waad wiil yaroo iska ciyaarayaa tahay aniga maanta yaa iiga xoog badan buuraha maka oo dhan ninka xukumaaso aniga maaha wallaahi mar keliya haddaan dhawaaqo in sida haadda lagu kala goosan doono hadalkayga waa la maqlaaya tii baa ilaahay uga jawaabayaa goodigii uu nebi moxamed u fuliyey wuxuu ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala falyadcu ha dalbado abaajahal naadiyahu ururkiisa ha dalbado naadigiisa ha u yeedho sanadcu waxaanu dalban baa ilaahay yidhi azabaaniyata naarta yani malaa'igta naarta jahannamo ka shaqaysa zabaaniye laydha bal isagu dadkuu dalbanaya iyo ururkiisa ha dalbadiyo naadigiisa sanadcu annana waxaanu ku dalban azabaaniyata waxaanu ku dalban malaa'igta naarta kalla arrinku sidaa ahaan maayo nebi moxamedow ninkani waxba kaa guri maaye laa tuطichu warkiisa ha aطeecin wasjud ilaahay u sujuud annagaa kaa celinayne waqtarib ilaahayna u dhowow oo wixii ilaahay kuu dhowaynaya la imow suuratu tiin ayaa suuraddan la yidhaahdaa waxayna ka mid tahay suurada maka ku soo degay aayadaheeduna waa 8 wuxuu ilaahay ka warramayaa fadliga iyo wanaagga uu leeyahay halka aynu salaadda ula jeedsanno iyo fadliga ay leedahay halkii nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam waxyiga loogu soo dejiyo duursiinaah wuxuu intaa markaa ilaahay ka warrami doonaa markuu labadaa ku dhaarto
ayuu ilaahay ka warramayaa bini aadmiga noocan loo abuuray iyo sifadan ay u abuuran yihiin sancadan cid la wadaagtaa inaanay jirin makhluuqaadka uunka kula nool inagu laba aadin baynu kor u taagnaa makhluuqaadka kalena way afar adin leeyaan qaarna beerkaabay ku socdaan marka inay taasuna nicmo weyn tahay qaabkan ilaahay inoo abuuray sara joogani ayaa layna garwaaqsiinaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wattiini geedka tiinka la yidhaah baan ku dhaartay geedka tiinka la yidhaah kanaynu tiinkan idhaah qodaxda le ma aha waa geed kale oo insha allahu haddii ilaahay waafajiyay habeen dambe aan idin soo tusi doono waxaa la yidhaahdaa af soomaaliga qurcis baa la yidhaha qurcis waxaanu ka baxaa aaggaa ceerigaabaan ku arkay shimbiruhunbaa cuna mana intifaacsato soomaalidu geedka qurcista la yidhaah baan ku dhaartay waa geed manfaco badan oo brotiin iyo yani fitamiin badani uu ku jiro oo lafaha caruurtana wuu koriyaa maskaxdana wuu koriyaa geedka tiinka la yidhaah qurcista ah u taqaanin soomaaliday baan ku dhaartay wazaytuuni geedka saytuunka la yidhaah geedkan innagu aynu saytuunka u naqaanee midhaha badani gudaha ugu jiraan kaas ma aha ka saytuunka ilaahay u yaqaana kaas af carabiga waxaa lagu yidhaahdaa jawaafa kan saytuunka innagu aynu nidhaahno carabiga waxaa lagu yidhahda jawaafa saytuunku waxa weeyaan waxaa ku garanaysaan saliid seedda taynu nidhaahno ama saliid saytuunka dadku ay isku duugaane raashinkana lagu darsadee dukaanada lagu iibiyo saliid seedda la yidhaha ama saliid saytuunka waa mid laga miiro weeyaan oo iminka waxaad ka heli kartaa meelahan maalan ay yani subarmarketada way keenaan isaga laftiisa inaan habeen dambe inaan soo qaado waan isku dayi doonaa insha allah labada geedba watiini waxaan ku dhaartay qurcista wazaytuuni geedka saliidda laga miiray zaytuunkaan ku dhaartay watuuri waxaan ku dhaartay buurtii siiniina barakaysnayd watuuri siinaa'ana waa la yidhaahdaa buurta barakaysan baan ku dhaartay waa duurtii iyo buurtii nebi muuse loogu soo dejiyey towraade taana waan ku dhaartay wahaada albaladi beledkanna waan ku dhaartay iyo magaaladan alamiini ilaahay u amniga siiyey waa makae saddexdaasaan ku dhaartay waxay dhaartaasi iiga badan tahay laqad khalaqna alinsaana inaan idin garwaaqsiiyo oo ila aragtaan lawallaahi baan ku dhaartay qad khalaqna alinsaana bini aadmiga waanu abuurnay fii axsani taqwiimi jooggii iyo taagitaankii ugu qiimaha badnaa baan ku abuuray uma dabadeedna markaan sidaa u karaameeyey intoodii badnayd karaamadii may qaadan way gaaloobeen uma dabadeedna radadnaahu waanu celinnay asfala saafiliina kuwa hooseeya kuwa ugu hooseeyaan ka sii dhigay inta la liido ee hoosaysa baan ugu hoosaysiiyey maxaa laga wadaa innahum kalancaami bal hum adallu sabiila ruuxu markuu rabbigii uumay garan waayo waxa weeye waa ihaano halkii ugu dambaysay uma dabadeed markii aan qotomiyey aan caqli iyo garasho siiyey ee uu ilaahay ku garan waayey radadnaahu insaankii waanu celinnay asfala saafiliina kuwa hooseeya ayuu ugu sii hoos maray ila aladiina kuwii mooyaane aladiina kuwaasoo aamanuu ilaahay rumeeyey kuwa iyaga maanaan hoosaysiinin kuwa ilaahay rumeeyey marka laga reebo wacamilu saalixaati camal wanaagsanna la yimi falahum kuwaasi waxay agtayda ku leeyihiin ajrun abaal bay heli doonaan hayru mamnuunin hayru maqtuucin abaal aan kala go-ayn bay qaadan doonaan su-aal buu markaa ilaahayna weydiinaya oo weliba inta gaalowday ilaahay weydiinaya bini aadmiga waan ku abuuray qaa'imkii iyo jooggii ugu wacnaana waan ku siiyey qalim iyo sida wax loo qorana waan ku baray garasho iyo aqoonna waan ku siiyey anigaa ku arsaaqa waxaad u baahantao dhanna anigaad iga rabtaa haddana kayrkay baad caabuddaa waad igu kufriday su-aal iga jawaab famaa yukadibuka maxaa kugu ikraahaya inaad beeniso bacdu intaasoo daliilo dabadeed biddiini in xisaabi dambayso maxaa kugu kalifaya inaad beeniso famaa sababtu maxay tahay yukadibuka kugu qasbaya inaad beeniso bacdu intaa aan kuu sheegay gadaasheed biddiini inaad aakhiro beeniso maxaa kugu kalifi doona hadhowma cudurdaar baad heli doontaa alaysa allaahu ilaahaysa miyaanu ahayn biaxkami alxaakimiina inta xukumta ee gar qaada ilaaha ugu caadilsan miyaanu ilaahay ahayn tabaaraka wa tacaala suuratu sharxi suuraddan suuratu sharxi baa la yidhaahdaa suuraddan iyo suuradda ka dambaysa ee suuratu duxa isku mar bay soo degeen labaduba waxay ka warramayaan fadliga
يعني محاكرة شرفت النبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى إلهي وحو قرآن كيسا كويري سورة ومكي يدنا ونسديد آيضات ألم نشرح ونبي عليه الصلاة والسلام لو قلبي قبور جنية والله أبتيسا إن واسع لقدقي إيمان واسع عن اللسيي لوت المامية ألم نشرح نبي الله هيد ميانا واسعين لك أديك صدرك لاب آدي آد قادوين ميانا كسينو واسعة ووضعنا ميانا كارد عنك حقاق وزرك عليسكي آدمها فول لها يوردن أديك ميانا كائلا للنبا ذنوبت بنا آدمك قلبي قودا مدوبيسا دبرك كتشبيسا صوتا أديك كاسا محنين ماها وحدا بيبا آنو كائلا للنين ماها ووضعنا وحانو كادتشني وآنو كابد بادني عنك حقاق وزرك عليسكي كفول لها با إلهي كاسمي كائلا لي الذي عليس كاسو أنقض شبين لها ظهرك دبركاغ عليس كو أهان لها يهدو حساب لقولاي من لها صوت اللقابة دايي ماها ورفعنا ميانا نضلعين وكريلين لك أديك ذكرك شيك قاقع مركا مقع إلهي لسوق هذا وميان أديك لقوقول لما نينين ميان مقع إلهي سرأو قادين ذكري قاقع يا شيك قاقع إمام كستا oo qudbada akhriyaya markuu ilaahay xuso ilaahay nabigana uu ku xigsiin muadin kasta markuu adimayo ashhadu an la ilaha illa allah hadu ila ashhadu anna muhammadar rasuulullah booran nin kasto tukanaya markuu taxiyaadsanayo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah wa rafa'na miyanan koryeelin laka adiga dhikrika sheegaaga iyadoo intaas oo dhan aad haysato adduunyadu hadana way dhib badan tahay iyadoo dhibaato tahay hadana farajkum baa ka badan fa inna ma'al usri markastoo kadeed yimaado waxa la socda yusran dib kastoo adduunyadan aad aragto yusri baa ka dambeeya laguma waaro dhibaatada shalay bay abaarahayd maantana waa barwaaqo meelaha laga leeyahay laga macabaan muxuu maanta yani muu inaga ka waawaariyo marka insaanka sidiisaba iska dulqaad yar fa inna ma'al usri kastiya dhibaato kasta yusri baa ka dambeyn inna ma'al usri kasta يسرا دباتا يعني يسري با كدنبين او waxa weeye yusri ba horeeya dibba yani ku xigta yusri ba kadambeeya baynal yusri usrayni baynal yusri baynal usri yusrayni markasto oo dhibaato timaado horeysiya dambeysaba waxa fudayd ba kuna horeeyay kana dambeynaya hadaba haday sidaa tahay nabi maxamed oo adduunyadu sideedaba ay iska yusri istaba guuraya ay tahay fa ida faragta markaad ashqaasha adduunyada iyo dacwada aad ka faaruqdo ee aad dhamayso fansab waxa loo baahan yahay tacab kale laba tacab baa lagu abuuray tacabkan adduunyada iyo tacabkii aakhiro markaad adduunyada hawsheeda aad bogataba ee dacwadiyo diinta faafinteeda aad u baxdaba markaad hadana gaar noqoto tacab labaad oo kii aakhiro baa laga rabaa فإذا فرغت markaad hawshii adduunyada dhamayso sida dameerka intaad iska jiibsato ay maxaan ku raa iyo sida maxaan ku raa waraabaha tagoogtaha qaniinine fansab tacab iyo daal baa loo baahan yahay labaad oo kii aakhira wa ila rabbika ilaahay farqab ididiiladaada ku xid wa ila rabbika rabbigana farqab ididiiladaada ilaahay ku xidho سورة الضحى سورة الضحى baa la yiraahdaa waxay tilmaamaysaa barqada oo waqtiga cadceedu intay soo baxdo waxooga ay yara kululaato waana maki waana 12 aayadood waana ilaahay baa ugu maxaan ku raadnaa nabi ilaahi muhammad iyo fadligu siiyay ku tilmaamay wadduha barqadan ku dhaartay wallayli habeenkii baan ku dhaartay ida saja إذا اشتد ظلامه مركا مدوغيسو أو آدي آدو سي أتكاد سجا اشتد ظلامه مركا مدوغها بينكو آدو أتكاد بان كدارتي ما ودعك كموسا قوتنين ربك ربك كامتقن وكمسا قوتنين وما قلا كومنا عرونين ومدبل ayaa waxyigu ka kala go'ay nabiga kaleey salaatu wasalaam markaasay gaaladii ku shimbira waaqaysalo tiri alla jinkii u iiman jiray ee wax u sheegi jiray uu ka cadhoodo way iskaga tagay markaasaa ilaahay ku yiri ma wadacaka kuma sagootinin oo rabbuka rabbiga kaama tagin wama qala kumana cadhoonin walal aakhiratu takusugayse dambayse aakhiraba khayrun laka kaaga sii waliba qiimo badan min al-ula adduunyada adigoo ah kii ugu sharafta badna aakhirana waad ka sidan doontaa
ولسوف يعطيك سبنا فوقين با إلهي وحكسين دونا ربك ربكايو فترضى إلهي وكرالق لندونا أذيك يا أمد هذا وكرالق لندونا ألم يجدك أن كويدي الرسول الله سو مدع وقتي إلهي وكسوه لي يتيما أذيك أغونا سو مجرين أو فآوى أو عدكم يعني كمجنجلسا وآدوه يتي إلهي سو كمصين إمسا أغون ضيعنا أكتاذا وأنا هلي قرابك يعني كفالق هدلاء أذيقنا مركي آبها دنتي هو يدا دمتي ميان مرب إلهي عدك كفالق هذا وقعنت كوجلين ألم يجدك ميان إلهي كويلين يتيما أذيقو أغونا فآوى دبدين إلهي سوكما هوينين وكما مجنجلين ووجدك إلهي سوكما هلين ضالا مرض هبوضي سومجرين فهدى إلهي وجدك عكتك وصاري إساقو سبيه هو يرى أفركرة أيو دقاقي عرورت markay yar tahay oo caga baruurka tahayna hadiye jeer ma daasho oo iska socota wuu socday makanikii arkay waa wada buur kastana doox yar bay soo rogtaa gacanadii inuu sii raacay uu badhamcay waa la baadi doonay maka oo dhan waa la soo waayay awowgii ayaa markaa gacanta ku hayo wuu ka soo qoostay meeshaasna iyo habar dugaag baa ku noolaan jiray waana ilmo yaroo sabiya dabadeedna wadadii ayuunbuu ilaahay cagta u saaray meel maka iyo guryihii ku soo bixinaysa halkiibuu ku badbaaday alam yajidka wa wajadaka ilaahay wuxuu ku helay daalan adigoo habaabay oo sabiya fahadaa markaasuu ilaahay dawgii cagta kuu saaray gurigiina ku geynaysay wawajadaka wuxuu ilaahay ku helay caa'ilan adigoo caydha oo aan iskana furin iskana faydin baa jirtay faaghnaa markaasuu ilaahay uunka kaa kaafiyey bini'aadmiga ilaahay waa kii kaa kaafiyey faamal haddaba hadday sidaa tahay ood agoonnimo soo martay oo aad faqri iyo gaajo soo aragtay oo aad rafaadkay leeyihiin aad ka marag tahay faamal yatiima sidaadaba agoon falaa taqhar agoon weligaa ha guulguulin agoon weligaa ha qasbinoo xoolihiisa ha ka qaadanin وأما السائلة نقع أنت كهوس هورصدين أو كسؤاشين فلا تنهر هقول قولنا مرضا ما هيقصون نقول يعينك هكورنا هذا القلب يصدبه روح كبري إستجاب الدليسن إن هذا الوناكسن قدر تمويانه مسكين باهن أو قعنت كهورصدي ولقى هقول قولي فلا تقهر هأحوك شيئا ويتيمك فلا تنهر هقول قولي مسكينك وأما بنعمة ربك مركو إله ديق السيانة فحدث هكا موقته نبا مساجدك وقصه قال النبي مركاس وحا نرتع حنبو حريه تميه سنة وين راميسيهن وين بساسيهن مركاس النبي قوير عليه الصلاة والسلام مركاس كويري سيدنا ضد يعنتها مما العام باكو هايسية الدون الآن مركاس يري أفرت مال الدنيا وعامرانها markaasuu yidhi haddaan maad maalkan ilaahay ku siiyey ha kaa muuqdee maad waxaan sidanaa tahay aad wax ka doorisid marka haddii ilaahay uu hanti ku siiyo hana ku kibrin oo waxaanad u baahnayn maxaanku dhaha la imanin wax indhuhu diidaanna dee ha isdullaynin oo amaa binicmati rabbika nicmada ilaahay miyaa faxadid ka qisood oo ha qarinin ilaahay deeqdiisa halkaa caawa ha inoogu jooga cashar